assalaamu calaykum. Waxaan arkay ninkii oo kor loo qaaday oo cunaha la hayo waxayna ma arkayo isagii ayaa gacanta igu ishaaray bax dabeeshii ayaa inta qolkii ku wareegtay ayaa aanu arkay waxay ka baxday daaqadii William dhulka ayuu ku dhacay cabbaar ayuu nasanayay oo neefta iska gurayay indhuhuna waa ay casaadeen markii dambe ayuu ku qayliyay maxaad ii dilaysay waan ku naxay oo waxaan ku uri maxaan galabsaday oo aan dhibay waxa uu igu yiri anna shuruudihii mid baan ka tagay adna waxbaad akhriday oo ka gubtay kadib waxa uu igu yiri miyaad ii shirqooshay oo maxaad akhriday waan dafiray in aan wax akhriyay laakiin waxaan qirayaa in aan aayatul kursiga akhristay aayadaas ayaa gubtay jinkii maalinta kadib madayn ilaa aan akhristo waxaan dareemay deganaansho iyo xasillooni dheeraad ah aayatul kursi waxay noqotay hub aan kula dagaalamo cadowga iyo sharka qarsoon Sir William waxa uu igu yiri iga tag oo habeen dambe isu keenkeen waayahay intaan ku uri ayaan qolkaygii tagay habeenka baqdin iyo cabsi khayraad ayaa ku gaadhay habeenkii qaybtiisii dambe daaha dhaqaaqab waxaan moodayay jinkii aayatul kursi markaan xasuustay ee aan akhriyay ayaa nafisay oo seexday Sir William ayaa habeenkii dambe kulan cabashaha igu yeedhay isagoo doonaya inuu igala sheekaysto qandaraasyo ay wadaan iyo mustaqbalka dalkan wuxuu bilaabay sida adduunyada ay saliida qayrin ugu noqotay wax laga tiirsan yahay la'aanteedna dhaqaaluhu waa burburaya maadaama oo sidaas muhiim u noqotay waxaa la isla gartay in la qorsheeyo isticmaalkeeda qorshuhu waa in bariga dhexe la isticmaalo 80 sano oo ka soo bilaabantay 1940kii ilaa 2020ka halka 80 sano xigana la dejiyay in la soo saaro khayraadka saliida ee ku kaydsan geeska Afrika oo ay ugu badan tahay ta ku duugan dhulka Soomaalida gaar ahaan Somaliland waxaa la gaaray waqtigii la maali lahaa naaska irmaan ee Soomaalida mashaariicda aanu hormuudka u nahay ayaa daaran in dadka loo bisleeyo sidii ay u aqbali lahaayeen in aanu bedelno qaabka dadyoga carbeed loo qaabeeyay sida dalalka carabta waa in loo qaybiyaa kuweydyo badan oo mid kasta gaarkeed aanu u baqamaalno qorshayaasha intooda badan waa la fuliyay oo ka shaqaalaysiintooda ayaa noo dhiman markaad aragto Jubaland Puntland Hirshabelle Galmudug iyo Ximin iyo Xeeb oo mid kasta ku dhawaaqay madax banaani goortaas ayaa qorshahaygu noqonaya mid midho dhala oo aanu guul weyn ka gaadhno haddase waxaan u socdaa baaritaan asaar hore ah waxaan ku raad joognaa mulkigii Suleymaan oo nala soo galay dhulka Soomaalida baydhabo waanu ka weynay raad hadda Muqdisho ayaan baaraynaa weli si cadayn ma hayno marka adigu waxaan ku dirinaa qarna oo laba raad ka soo baaraysa mid laba doox oo kulmay ayaad goobaysaa haddaad hesho ka eeg xabaalku dadkii hore ah oo 9 mitir dherer leeg waxaan ku uri meeshii dheetan ku jirtay oo maalkaas ayaa laga baarayay waa xerada xalane waxay ku jawaabay indhahaaga dabool wixii aan ku dirina doon hana arkin waxa aadan idan u haysan warkan uu ii sheegay waxa igu qasbay in aan daraasayo boqortooyadii Nabi Suleymaan ee cashirta badnayd Suleymaan dunida oo dhan ayuu ka talinayay wuxuuna maamul u jiray jinka iyo shayaadiinta dabaysha ayaa u ahayd gaadiid jinka nooca cafaariidna ayaa u dhisi jiray qasriyo waaweyn iyo saro dhaadheer waxaa kaloo ay badda gunteeda uga soo saari jireen macdanta qaali ee lu'lu'u iyo marjaanka waxa uu ahaa boqor hodan ah oo dahab badan haysta awoodda Nabi Suleymaan Rabbi ayaa siiyay waxauna ku ducaystay in aan cid ka dambaysa la siin awoodda culus waxay igu adkaatay in aan ogaado mulkigii Suleymaan waxay uga jeedaan macdanta xad dhaafka ahayd mise maamulkii jinka iyo shayaadiinta mise tasarrufkii Alle siiyay mise intaas isku qoofan ayay raadinayaan waa mowduuc culus oo u baahan xog badan iyo lafakur baaxadiisa leh marka baaritaan kooban sameeyay kolkiiba waxaan la kulmay aragtiyo istiidan qolo ayaa leh waxay raadinayaan fargalkii Nabi Suleymaan oo lagu maamuli jiray jinka iyo shayaadiinta madaxa adag qaar kale ayaa leh waa dahabkii xad dhaafka ahaa qaar kale ayaa qaba inuu jiro buug lagu maamuli jiray boqortooyada kuwo aad u fog ayaa qaba inuu sixirka ku maamuli jiray oo iyaguna raadinayaan in ay sixirka bartaan arrinta quraanka ayaa Nabi Suleymaan ka bari yeelay kuwa dadka sixirka barayna waa jinka intaan cilmi baarista ku foogana ay gaadhay waqtigan u dhoofi lahaa qarno waxa la baarayaa waa godad iyo xabaalo qadiimi ah jaantu sir ayaa sitaa iyo saacad sheegaysa dhagaxa meesha yaala nooca uu yahay iyo GPS ku siinaya jihooyinka la beegsanayo markaan halkii tagnay ayaanu helnay dhagax marka la sawiro ay ka dhex muuqanayso tawxiidku dhinaca kalena qoraal kale ay kaga xadhan tahay Allahu Akbar waxaan go'aansaday inaan u bandhigin Sir William markaan ku noqday waanu ka qarinay fajicisadii aanu kula kulanay waxaan ku afgaboobsaday in dhigaha iyo loolku ay naga khaldameen Sir William ayaa doonayay inuu la hadlo qareenkayga marka hore ayaa si dareemay oo hoosta ayaa ka sii akhristay aayatul kursi iyo bisika waa awoodi waayay inuu akhristo waxa uu igu yiri sidan aad imika u shaqaynayso waad ka qoomamayn doontaa
isma lurin ee waxaan ugu jawaabay shaqoole hoosaad kuma ihi ee aynu is-ixtiraanno waa iga tegay isagoo cadhaysan oo leh maybe you are a mole kelmadda horey uma maqal ee markii qolkayga tegay ayaan baadhay mole counter spy oo u taagan cidda kugu dhex jirta ee lagugu dhex darsaday si lagu basaaso waxaan u gartay nin cadho madax martay oo aan iska ilaaway waxna kama soo qaadin toddobaadkii xigayna waxaa laygu soo casuumay shir ka dhacayay New York oo laygu soo casuumay in aan uga qayb qaato khabiir ahaan inta aan safarkayga u ama bixin ayay xaaskayga ila soo hadashay waxay iga codsatay in aan is aragno anna waan ka cudur daartay oo waxaan u sheegay in aanu shaqo u baxayo way ka xumaatay oo waxay igu tiri noloshii qoyskaaga waxaad kaga mashquulshay shaqo degdeg ayaan diyaaradii ku raacay anigoo degdegsan ayaa waxaa fadhiistay kursi anigoo waxba u fiirsan kursiga waxaa hoos taalshan dad haween gabadh qurxoon oo maalin madowxiga ah oo joog wanaagsan leh ayaa u soo dhaqaaqday dhankayga way soo jiidatay markaan indhaha ka qaaday anoo daawanaya oo la dhacsan quruxdeeda ayay soo dul istaagtay ilama hadalee farta ayay igu fiiqday shandadeeda waana uga kacay kursigii oo waxaa fadhiistay kii ku xigay intay shantadii qaadatay ayay dhaqaaqday waan sii daawanayaa ilaa inta ay sii libdhayso qof aan aragtidii koowaad ka helay waa gabadhii labaad tii hore maalka geli ku yaal ayay ahayd mase calfan inaan barto diyaaradii ayaanu u kacnay oo aanu fuulnay waxaan ku qornaa qaybtii economy classka oo durqi la igu helay markaan fadhiistay shandadii dhigtay aan koodhka la baxay ee isyaro kala bixiyey ayaa qof ka mid ah shaqaalaha diyaaradda igu sheegay in kursiga maamuus lay hayo la iguna diyaariyey business class waan soo fadhiistay qaybtii la ii soo wareejiyey si kadiisa ayay u soo gashay gabadhii aan ka helay oo agteyda soo fadhiisatay waxaan u farxay si aan weligay u farxin waan soo hinqaaday si aan u soo dhoweeyo haddana nafta ayaa igu tiri degdegine gabadha jaanisiya si ay u nafiso safar dheer baad wada galaysaane dib ayaan u fadhiistay oo fudaydka ayaa maskaxdayda ka degay waa gabadh sida danabka ii soo jiidatay jiiniyad awood badan ayay leedahay oo qofkii arkaa aanu ka jeesanayn diyaaraddii ayaa kacday markaan cabbaar hawada ku jirnay ayaan salaamay oon ku udhi magacaygu waa kan ee magacaa ma isbaran karnaa intay dhowla caddaysay af ingiriisi ku tiri dib ma lahan haddaanad ii soo dhaafayn waxaan gartay inay iska kay xidhxidhayso oy diidan tahay inaan sheeko dheer la galo waxaan ku udhi qalbiga ma maamulo laakiin carabkayga waan ka adagahay waxay igu jawaabtay I control your hair too waxaan ka codsaday in aan barto iyana way iga aqbashay muddo waxay iskiijisaba aakhirkii saaxiga ayaan isla keenay si fiican ayaan iskula kaftannay waxaan weydiiyey anigoo ka naxsan in la guursaday oo hadda miyaa lagu qabaa waxay tidhi ruuxiyan ahaan haa laakiin naftayda may waan fahmi waayey waxay ka wado way ii sharaxday oo igu tiri nin aanu isjeclayn ayaa jira waxaanu ku ballannay in aanu isguursanno markuu jaamacadda dhammeeyo markuu qalinjabiyey waan faraxsanaa ilaa xad ma qiyaasi karin farxaddayda gaadhigii anigoo gacantayda ku waday si aan cabiri karin hadda ayaan shir galnay way ilmaysay waan ka naxay waxaan ku udhi waan ka xumahay inta aan ku xasuusiyey nolosha murugada badan way aamusi weyday deeto intaa laabta geliya ayaan dejiyey muddo ayay laabtayda ku jirtay markay aamusta ay igu tiri adigu yaa tahay waxaan ku udhi maxaad ka wadaa waxay igu tiri waxaad tahay qofkii igu horreeyey ee muddo sidaa u gaaban kasbada qulubtayda waxaan dareemayaa inaad tahay qofkaygii iyo dooqaygii aan nolol la wadaagi lahaa culayskii iyo murugadii aan la noolaa 3 sano ayaad igu ilowsiisay intaa yar rabitaan weyn ayaa ku abuurmay laabtayda waxaase ka baqayaa inaan adnaku waayo waan isi siiyey iyana gamcahayga ayay ku dhex jirtaa oo sidii laba is-yaqaan sannado badan ayaan isku dhex galnay gabadhay xidhxidhnayd qosol iyo farxad ayaa ka soo hadhay annagoo ilownay safarkii dheeraa ayaa codka diyaaraddu nagu baraarujiyey in aanu soo gaadhnay John Kennedy International Airport xiisihii iyo rabitaankii aan isku haynay ayaa na dhaafiyey inaanu ogaano culayska safarka waxay ka codsatay inaanu hotel degin aan u raaco guriga ay degan tahay waan ka aqbalay dalabkeedii waxaan dhaafay qofkii ii sii taagnaa madaarka si uu ii geeyo hoteelkii aan sii bookin garaystay tagsi ayaan wada qaadanay waxaan ii geysay guri qurux badan oo 3 qol ka kooban si fiican oo goobinimo leh ayay ii soo dhoweysay waxaan dareemay jacayl xad dhaaf oo aan xakamin karin waxay gabadhu noqonaysaa qofkii labaad ee si niyada u jeclaado waxaan go'aan hoose ku gaarnay inaan nolol wadaago iyadase uma bandhigin iyada waan ka dareemayaa rabitaan xoogan oo waxaan u noqday rajo mar labaad soo noolaysay ruuxdeeda subaxdii labaad anigoo si kaliya laabo u dhagaysanaya ayagu tiri isma lahayn qof baad mar labaad jeclaan doontaa show fursad baad ii laabnay ballan baan ka qaaday inaan kaga bixi doonin jacaylka waxaase maalintii saddexaad ka bixi waayey gurigii shirkiina waanu ka habsaamay maalintii labaad ayaan xaadiray madashii shirka waxaa soo agaasimay koox la idhaahdo Shadow Council oo u xil saaran waxbarashada dadban ee caalamka Shadow Council qaybtooda Yurub ka howlgashaa waxaa loo yaqaanaa Shadow Factor waxaa aasaasay 1818 nin filosofa oo la odhan jiray Graham Norrie Graham wuxuu aaminsanaa hubka ugu culus ee aadan lagu burburin karaa inuu yahay waxbarashada oo si khaldan loo isticmaalo dadkana laga leexiyo jidka toosan halhayskiisii caanka noqday waxaa ka mid ahaa